markii la joogo siyaasadda waxaad u baahan tahay inaad yeelato saddexdan sifo. kow waa inaad leedahay karti ay markastana kaa soo muuqato. labo waa inaad leedahay dulqaad badni oo aad dadka kaleeta aad dulqaad dheer tahay. saddex waa inaad leedahay la taliyo wanaagsan, fikir walbaba aad keento mid ka wanaagsana keeni karo. laakiin waxa aad jiro siyaasadda ku jiro oo dhegihiisii afkiisa aysan ismaqlaynin. halkan waxaan kuugu soo gudbi doonaa markii uu ka hadlayay siyaasaddii ama uu kaga soo hadlay boobkii uu suubiyey Axmed Madoobe, uu ka hadlay arrimo badan oo muhiim ah ayaa rabaa halkan inaan kuugu soo gudbiyo. labo, wuxuu ka hadlay arrimihii ku saabsanaay ciidankii loo qaaday Eritrea, waxyaabo badan oo ku hadlay ayaa rabaa halkan inaan kuugu soo gudbiyo. fiidiyowyadii uu kaga hadlay arrimahaasi ayaa rabaa halkan inaan kuugu falanqeeyo. saddex, waxa ay tahay arrimaha doorashada uu ka hadlay ayaa rabaa halkan inaan kuugu falanqeeyo. weliba uu ka hadlay arrimo ugu muhiimsan ee dadka ay tahay in loo soo bandhigo ayaa rabaa halkan inaan kuugu soo bandhigo. qodobadaasi oo muhiimka ah waxaan kugu hayaa waxa ay tahay waa fiidiyoyo cadeymo muujinayo. anigu ma ka ban sheegayo, laakiin isaga ayaa isku marqaati furayo. halkan ayaa rabaa inaan kuugu soo gudbiyo. fadlan waxaan kaa codsanaya intaan barnaamijkeena guda gelin inaad fiidiyogani u geysaan oo aad siyaabaha ugu muhiimsan ee loogu gey karo ay tahay inaad laagarayso, sidoo kale aad u sheergaraysaan oo aad ku sheergaraysaan gruubyada iyo dhanka kaleeto. waxaan rabaa inaan guda galno oo ku horeyno inaan soo bandhigno fiidiyogii uu kaga hadlayay arrimaha doorashada iyo sidoo u taageeray ayaa rabaa halkaa inaan kuugu soo gudbiyo. aynu bilaabano. waxaan rabaa inaan bogaadiyo doorashada maanta ka bilaabatay magaalada Muqdisho ee xubnaha Soomaaliya ka soo jeeda ee matalaya baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. inaan bogaadiyo hanaanka ay ku bilaabatay oo hanaan daahfuran, tartankiisa ama baratankiisana uu furan yahay. runtii waxaa laga soo maray dadaal dheer iyo juhdi fara badan in doorashadaas ay yeelato habraac u gooni ah, inay yeelato guddoon sare ee reer Somaliland ah, inaysan gacanta u gelin koox gooni ah. aad iyo aad kow wuxuu ku taageeray meeshaani doorashadii ayuu ku taageerayay. fiidiyogan hadda qaybta koowaad aragto waxaan rabaa inaan ku tusiyo habka oo doorashada uga falcelinayo. waa haddee saddexda sifo aan kuu sheegay. ninkani haddii ay ka muuqdaan cadday, haddii aysan ka muuqanne anigana waan ku cadday doona hadduu alidmo. qaybtii hore waxaad kusoo aragtay inuu ku taageeray in doorashada habkii u socoto inay tahay habkii ugu wanaagsaneed. weliba doorashada kii lagu bilaabo uu ka mid ahay Cabdi Xaashi, isaga gacantiisa kusoo xushtay isku doorta qaabkiisa. waanu ku taageer doorashadaasi, waanu ku faraxsanahay. laakiin waxaan rabaa in halkan kugu sii bandhigo habka oo doorashada uga soo horjeestay. waa marka aan ku leeyahay waa inaad leedahay dulqaad, waa inaad leedahay la taliyo wanaagsan, kaana fikir wanaagsan. markii aad leedahay waxyaabo badan ayuu kaa celinaa. marka aan ku leeyahay waa qaabkan oo kaleeto ku socayaan leenahay qaybtan kaleeto. siday doorashooyin ku bilowdeen ma aha sidii saxda ahayd, waa si boob maaragtay bareer ah ay ku bilaabatay. saa la socotiin waxaan ka soo saarnay qoraal cad iyo mowqif cad ayaan ka qaadanay. waxa aan darsaynay maalmahan waxaa ugu muhiimsanaa inaan fiirino khiyaaraadka ama optionskan hor yaalla oo wax lagu sixi karo, lagu toosi karo, wixii hadda inay sii socdaana lagu istaaji karo. marka markastana annaga waxaan u duurxulaynaa midka danta dalka iyo dadka ay ku jirto oo sida ugu fiyoobida badan, ugu maaragtay dhibka yar oo qaranka iyo dowladnimada iyo arrimaha masiirka dalkaba ugu fiican inaan ka fekerno. degdeg ma jiro runtii, laakiin dadka Soomaaliya waxaan u caddaynaynaa annaga waxaan mudnaanta siinaynaa in waxa la hagaajiyo, la joojiyo, la isku yimaado, laga wada hadlo. Soomaalidu hadday isku timaado waa heshiisaa. taasa annaga mudnaanta siinaynaa. waxa laga hadlayo waa doorashadii. wuxuu ku doodayo qaabkani waa sida aan ku leeyahay. ninkan dhagihiisa afkiisa isma maqla. marka aan ku leeyahay waa qaabkani. siyaasadda ayuu indha adeeg ugu jiraa. siyaasadda ayuu wuxuu ugu jiraa inuu ka muufaysto oo kaliya. uguma jiro siyaasadda hami ah inuu noqdo madaxweynaha dalkii hogaamin lahay, weliba jecel inuu hogaamiyo ummad kala duwan, kala siyaasad duwan, kala fikir duwan, weliba kala qabiilaysan in la isku hogaamiyo ayuu u baahan tahay siyaasadda. laakiin saddexda sife aan kuu soo sheegay
labada video hadda aan kuu soo bandhigay ee ah midna doorashadu ku taageerayay iyo midka oo doorashada kaga soo horjeesto oo ku sheegayo in ay weliba ay ka shaqeyn doonaan qaab ka wanaagsan qaabka doorashada u socoto saddexda sifo aan kuu sheegay kartida oo lahay inuu u yeeshto qofka siyaasiga kama muuqato dulqaadkii ahaa in la sugto waqtigeedana ma lahan sidoo kaleeto qodobka ugu dambeeya oo ah inaad leedahay la taliyin wanaagsanne ma lahan oo sababtoo ah wax ka celiya hadalkaani habyaraati ma jirto siyaasigani ayuu wuxuu doonayaa in mar kale oo dalkeena hogaamiyo okay waxaan rabaa inaan galno qodobkaani ayaa ii muhiim ah wuxuu ka hadlay arrimaha ku saabsan ciidankii la geeyey Eritrea bal qaabkii uga falceliyay ama hadalkii uu ku hadlay waa marka aadan lahayn cadeemo ama aadan lahayn la taliyo wanaagsan ee aanan meel kasta gelgeli karin waxyaabo badan cadeemo keeni karin marka aad leedahay hadaladan ayaa ku hadlaysa bal anagno yaana ka dhex gelin ciidamo Soomaaliyeed oo ah kuwii loo qaaday tababarka Eritrea oo ka soo gudbay xadka oo u soo dhawaaday meesha lagu dirisan yahay Aksum deegaanka la yiraahdo agteeda saala socotaan hore waxa u jiray kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dawladii uu hogaaminayay madaxweynaha xilligiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u qaadeen dalka Eritrea oo ilaa iyo hadda la meel ay jaani cirib ay dhigeen halka ay ku sugan yihiin waalidiintoodana maalin walba ay hor taagan yihiin warbaahinta ayna doonayaan cadaalad u raadinayaan wiilashoodii iyo gabdhahoodii loo qaaday wadanka Eritrea saa ogtiin ciidankaas waxaa lagu qaaday si sharci darro oo aan waafaqsanayn nidaamka qorista ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida guud ahaan markaan baaritaan sameeynay waxaan weynay ciidamada qalabka sida booliska militariga iyo nabad sugidda meel ay ka tirsan yihiin iyo hanaan lagu qoray oo lagu qaaday ma jirin dawladuna way ka aamusneed intaas ay waalidiinta dalbanayeen inay ka jawaabaan way diideen oo waa aragteen oo mar kasta oo la weydiiyay arrintaas way ka maagaan oo waa ka sagsaagaan maanta waxaa soo baxay oo cadaatay in ciidankaas ay qayb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ah haddaba way dhamaatay xilligii la isku qarinayay daaha gadaashiisa ama laga dhuumanayay mas'uuliyadda way dhamaatay waxaan dalbanaynaa in waalidiinta jawaab la siiyo waxaan dalbanaynaa in wiilashii Soomaaliyeed iyo gabdhihii loo qaaday dalka Eritrea ay dawladda ka jawaabto waan ogeyn horena waa u sheegnay waa ku celcelinay laakiin haddeertan waxaa soo baxday warbixin caalami ah oo qaramadii mudug ka soo baxday oo arrintii ka marqaati kacaysa waxaan u baaqiyaa madaxweynaha xilkiisa dhamaaday inuu banaanka soo istaago mas'uuliyadda arrintaas oo qaado waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed inuu rabo inuu isku qariyo doorashada uu raadinayana ku qariyo dambiyada oo dalkan ka galay oo ay kamid tahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dagaal ugu diray deegaano kale oo ka baxsan Soomaaliya arrintaasna arrin ka baxsanayo la xisaabtankeedii mas'uuliyaddeed inaysan ahayn runtii waa arrin aad iyo aad looga naxo arrintan in muddahan daba taagnayn dadku way nala yaabanayeen markaan lahayn ciidamadu meelo kale ka dagaalameen laakiin haddeertan waa arrin caalami ah oo banaanka soo baxday annagana dadka Soomaaliyeed xaqooda iyo inay cadaalad helaan u taagnayn ayadaan dhibaato badan u marnay jidkaasana ku taagannahay sidaas daraadeed waa dhamaatay xilligii la isku qarinayay boorka xilligii laga dhuumanayay mas'uuliyadda Farmaajo waxaa laga rabaa maanta inuu banaanka soo istaago adduunkiisa ku cadeeyay ciidankii halkan uu ka qaaday inay meel kale ka dagaalamayaan saas daraadeed inuu mas'uuliyadda qaataan rabnaa oo banaanka soo istaago oo wax badan oo ka dhuuntay dadka Soomaaliyeed oo ka dhuumanin waalidiintan oo ka dhuumanin waxaan u sheegaynaa waalidiintii aan la safanahay oo wixii aan tabar leenahay aan la garab taagannahay okay waxaan rabaa marka in hadalkan dul istaagno qoraalkii oo isla maanta uu ku soo qoray boggii uu ku leeyahay Facebook laakiin waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo ninkani waa eedeen calashaan oo aan lahayn dabool oo aan lahayn cadeymo ayuu ku hadlaa marka aan ku leeyahay inaad yeelatane kartine qaabkan ayay ka mid tahay inaad yeelato la taliyo wanaagsan ka celin karo waxa qaladka ahne waa inaad yeelato marka aan ku leeyahay sifadaasi ma lahan dulqaadkeedana ma lahanoo ma sugi karo waqtigeeda inta laga gaarayo in ciidanka Eritrea lagu soo tababarayo in dalka dib loogu soo celiyo okay qoraalkan ayuu bogga Facebook ku soo qoray oo aan rabay inaan ku aqriyo wuxuu dhahay shalay markii Eritrea loo qaaday waa hadda wuxuu isku cadeynayaa hadalkaani oo ku hadla hadda iyo sawirka meeshan aan ku soo saari doono oo aad aragta hadda oo kaga hadlay ciidankii Eritrea lagu soo tababarayo bal isbarbardhig
hadalka aan ku hadli doono uu ku hadla asaga wuxuu dhahay shalay markii electric loo qaadayay waa la siray waxaana loo sheegay in qadar la geynayo ee uu noqonayaan askari ilaaliso ciyaaraha adduunka qaarkood iyagoo ajnabi u diriraya ayay dhinteen halka kuwo kalena ee ciqaab iyo cudur iyo gaajo ay dishay hadalkan marka aad fiiriso wuxuu daba socdaa hadalkiisa ayuu burinayaa asaan isku cadeynayo ciidankan maanta dalka in lagu soo celinayo u jeedo ciidan dagaal la geeyane haddii wax ka badbaada ma jiree inaad ero wax dadka aad ugu sheekeynayso dadka aqliga ma la-ane dadka aqli ayay leeyihiin ee dadka ha nooga dhigin inay yihiin jaahiliin camal oo adigoo kaleeta ah okay wuxuu dhahay paragraphkan ku socono wuxuu dhahay dhowr kun oo kale ayaa dhowaan lasoo wadaa si dagaal ahli ah loo geliyo oo dalka xoog loogu qabsado qorshuhu waa in ay baydhabo muqdisho gaalkacyo la geeyo si bu-aala muqdisho iyo garowe loogu qabsado soomaaliya iyo farmaajo nin xukun nabad iyo doorasho ku dhiibaya ma ahee waa nin in aan iska qabanaa inta uusan fidno weyn iyo dagaal sokeeya lugaha inoo gelin oo dhahay okay paragraphka ugu dambeeya aan kugu daray wuxuu dhahay waalidiintii hore loo siray waa in aysan ogolaan in ubadkooda loo haligo oo dabka lagu guro macnaha hadalkan marka aad fiiriso wuxuu markaan durayaa ciidankii tababarkii lagu soo siiyay Eritrea ciidanka Eritrea markaan si qaasan kala hadlane waa ciidan tababar loo soo siiyay dhaqan ama qaab walba loo soo siiyo way ka duwan yihiin ciidamada Turkiga lagu soo tababaro waa ciidamo adag waa ciidamo ku filan amnigooda sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego waxay tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka shaqeynaysaa waxay tahay in amnigeeda dalka ay la wareegto maadaama amnigeeda dalka ay rabto in la wareegto hadee waxay u baahan tahay waa inay heshaa waa ciidan ku filan amniga dalka inay la wareegi karaan laakiin shalay waxaa lagu dacayaday inay ciidanka Eritrea in dhammaantood dagaal loo qaaday maantana wuxuu ku sheegayaa ciidankii in dagaal lagu soo birabo adeero yaa ku aaminayo marka qaabkan inaad u hadasho shalana qaabkaas u hadlaysay maantana qaabkan aad u hadlaysaa yaa rabo inuu ku aamino waa su'aasha taagan aniga hal mid aan rabo inaan kugu qiimeeyo kaliya qofka raba inuu ku aamino adiga waa qof doonayo ama qof ah qabiiliste oo aan cilmi maadi ama cilmi diini ah intaba aan lahayn intaas ayaan rabaa inaan ugu gudbin kaani qodobkaasi halkaas ayaan rabaa inaan ugu gudbo in kastoo video-ga dheeraaday fadlan soo qaado sheexaaga iyo cabitaankaaga si aan xogta saxda markaan aan si toos u sii guda galno waxaan rabaa inaan ku dul istaajiyo video-gii lagu soo dhaweeyay airportka qaabka u hadla balaarag وين سلام يا dadweynaha sida sharafta iyo qadarinta iyo milgaha iyo maamuus kale noo soo dhaweeyay intaba runtii in badan ku taameeyna inaan nimaadno magaaladan la cuna qabateeyay lana jabiyo xisaarkeeda waxaan ku faraxsanahay maanta in cuna qabateyntii ay jabtay oo maaragtay dadkii dhammaan halkaan isugu yimaadeen waana ku raacsanahay madaxweynaha waxa la isugu yimid cala masaar kaliya maaha siyaasadda Soomaaliya dadkeedii indheer garadka ahaa ama wax garadka ahaa ama wax ka soo maray ama wax ka soo qabtay oo dhan isku yimid waxaan rajaynaynaa marka in arrintu cala masaar ay dhaafto oo wixii tala ah iyo dan wadaag Soomaali ku saabsan aayaheeda iyo masiirkeeda meesha ay maraysana maanta ay ka dhacaysana waa loo jeedaa waxaan rabnaa marka horaan u bilownay Soomaali hore u soo waday in aayaheeda ay gudaha ay uga tashato meeshii ay dalka banaankiisa uga tashan jirtay haddii marka magaalada Kismaayo maanta ama Jubbaland ay noo martigelisay cala masaarkii madaxweynaha iyo wada tashigii ummadan isugu yimaadeen oo ka dhaxeeyay waa dhagax laba shimbir lagu dilay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dadweynaha reer Kismaayo iyo hogaankooda oo ku adkaystay inaysan u nuglaanin xisaarka iyo cuna qabateynta looga faa'iideystay awoodii dawladeed iyo midii qaranka intaba aad iyo aad u bogaadinaynaa qof kasta oo xisaarkaas dhibka weyn ka soo gaaray inay jabiyaan waa bogaadinaynaa oo arintaas ku adkaystay waxaan rajaynaynaa in talo toosan iyo mid maaragtay wax garad leh intaba hadduu Ilaahay yiraahdo ay meeshaan ay ka soo baxdo haddii noo dhamaado cala misaarka hadda nabigana wuxuu yiri unsur akhaaka daaliman oo madluuman marka nimankan walaalaheena talada hayana
inaan sidii gacmaha loo qabo lahaa ayagaan u gargaaraynaa sidii gacmaha loo qabo lahaa inaan ka wada shaqeyno ayada nafteedana meeshay ku jirtaa waa mahadsantihiin salaam waxaa loo kala orday in lagu taageero Axmed Madoobe doorashadii boobka uu ka suubiyey gobolka Jubbaland waxaa la yaab leh shalay waxaa loo kala ordayay oo dagaal loo suubinayo waxay ahayd Axmed Madoobe si looga qayb galay cali masarkiisa laakiin laguma xisaabtamin sababta ay dowladda cunaqabateyn u saareyso dowladda Jubbaland ma lagu xisaabtamin laakiin hadda ay taagantahay shalayto Soomaali waxay tiri shalayto ma horeysay waa ay dambaysaa laakiin raggaani dulqaadkooda marka fiiri hadalka aan ku leeyahay qofku waa inuu leeyahay dulqaadne kama muuqato meeshaani labo kama muuqato kartidii oo shalay ku tagay Jubbaland oo ku taageeray doorashadii dadbaneed ee boobka lagu suubiyay uma lahan kartidii oo u lahay shalay maanta uma lahan laba waxa ay tahay qodobka ugu dambeeya la taliyo wanaagsan oo kaala taliya inaad Axmed Madoobe kaga qayb gasho doorashadiisa waxay dhibaato kugu tahay doorashada soo socota 2021 dhici doonto inaad dhibaato badan ay ka soo wajihi doonto laguma xisaabtamay waxa lagu xisaabtamay in markaasi waxa taagan in laga muufeysto siyaasadane hadday muufeysiga u tagani kan kama ahan inuu wax faa'iido ka keeni doono okay waxaana inaan guda galno fiidiyoogii markii la taagnaa meesha masraxa hadalkii uu ku hadaaqay ayaan rabaa inaan dul istaagno tani waa dul istaagi doonaa hadal wuxuu ku hadlaanaa inaan googooyo oo aan dul istaago maanta waxaan joognaa in jabhado hubeysan ay ka damiir iyo garasho iyo dadnimo bataan dowlad Soomaaliyeed oo dhisan maantana dowlad Soomaaliyeed yaa Kismaayo waxay ku haysaa cunaqabateyn cunaqabateynta mar kale inaan ku sheego dowladdu waxay saartay cunaqabateyn oo dhan walbaba ah si Axmed Madoobe kursiga uu xooga ku qaatay si looga celiyo doorashada furna la qabto waxay dul taagiin markaani oo la falanqeynaya oo laga hadlaya waxay tahay waa doorashadii Axmed Madoobe lagu caleema saaray waa saddex ikeen aan hal kala bixi ayaa lagu doortay waliba ay ku faraxsayeen kana qayb galeen marka aan ku leeyahayna kartida iyo dulqaadka iyo la taliyaha inuu wanaagsan yahay hada qaabkaani sifooyinkaasi kama muuqdaan waxaan leeyahay ku soco yaan daro madaxweynaha waxaan leenahay mudane madaxweyne magacii qaranka huwan tahay ka xisho waxay jabhado Soomaaliyeed ka xishoodeen madaxda qaranka joogta intii aad dadka ku geey kartaan saqafka ama aad ku geey kartaan limitka ama aad ku geey kartaan xadka ugu dambeeya ku geyseen in lagu geeyo sagxadda hoose lala dagaalamo musuqmaasuqa ka jira Jubbaland dowladdu waajibada ay ka saaran laakiin markaan uu ku faraxsan yahay karti ayuu u arkaa wuxuu u arkaa inuu geesi yahay inuu hadli karo u arkaa laakiin maanta ay haysatahay bal ka fikir waxa ku haysta maanta dadka ha ku qasbinina inay wixii yaraayo dhisan dumaan inaan kala arrin ka dhawaajiyo waxaan rabaa hadda dowlad goboleedkii Galmudug xafladeedii xirnay munaasabadeedii waa gabagabeynay madaxweynihii waa caleema saarnay waxaan u soconaa Galmudug dhismaheeda waxa uu ka wado waa Jubbaland ayuu ka wadaa meesha uu caleema saarka taagan yahay waa Jubbaland waxa loo socdo waa Galmudug waxa doorasho ka socoto la bilaabi rabaa in doorashadii lagu soo dooranaya Axmed Cabdikaari Qorqor ragani waxay wateen rag musharax ah oo halkaas ay ku fadhiisiyaan markaan Axmed Madoobe waxa lagu taageeray doorashadiisa maadaama lagu taageeray waxa la sugaa waxay tahay markii doorashada saxda xilligan ee loo baahan yahay markay soo istaagto inuu saacido laakiin hadda waad aragtaa meesha cidadu ugu tagay maantana eedan ay dusha ka saareen maantana waxay taagan yihiin doorashada hakinaha lagu soobiyo waxaan rabnaa memberkan ka sheegaya waxaan rabnaa Galmudug in laga dhiso maamul dadka iyo dadka deegaanka iskale ay ku kalsoon yihiin oo yihiin maamul ayaga ay doorteen oo ayaga ay raali ka yihiin digreeta lagu soo saaray dalka waxa la isku hayo waxa waaye madal hal qof ka taliya oo xukun hal meel yaala oo hal meel laga gooyo waa sidaan ahaa jirnay oo dad badan oo Soomaaliyeed dowladnimo luntay u yaqaanaane
مساسا لو نقنيا مثل دلك وفدرال وديمقراطيك دستور iyo sharci uu ka taliyo war intaan hadalkan aan inaan ku dul istaajiyo oo ah dalka ma hal qof ayaa ka taliyo mise dalka dib loo celin rabaa hadalkan raba xil inaan kaaga falanqeeyo hadalkani waxa loo jeedaa waxay tahay maadaama Soomaaliya ay tahay federaal dawladdu walba waa inay wadamada shisheeye ee heshiis la gali kartaa that is not federal dawladda federaalka ah ayaa ka mas'uul ah wax walba arrimaheeda dibadda ah arrimaheeda gudaha marka ay timaadane haday way wada leeyihiin maamul goboleedyada ninkan marka wuxuu ka doodaya oo ka hadlaa waxay tahay maadaama madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka keenay nidaam ah in hal meel amarka laga qaadanayo in hal meel ay dawladnimada ka soconayso ayuu keenay maadaama oo keenane hada way diidayihiin halkaan ku soo Ethiopia isku doona lahayn oo ciidan ajnabi aan isku doona lahayn oo mid ka noo jooga aan iska saari lahayn waxaan rabnaa kuwa noo jooga inaan iska saarno kuwa madaxweynayaasheena villada jooga kuwii soo maraa jooga askari ugandhaysa furaha villada haya ina waatii Soomaaliyeed kuwaasaan rabnaa inaan iska saarno waxaan isaga saari karnaa Soomaalinimo waa maasantii madaxweynaha marka la u taaniyay salaam wuxuu dhahay hadalkan aan inaan ku dul istaajiyo marka wuxuu dhahay villada waxa hayo dhaa furaheeda askari ugandhaysa hayo dhaa macna alashan amisom nin ka tirsanaya hayo furaheedu dhahay daraadna wuxuu macnaha u aloleynaya alashan uu dhahay uu ka dooday sababta looga bixinayo maxay tahay amisom dalka iyadoo isku filneen amnigeeda dalka Soomaaliya waa hadalkaas fiiri adigu isbarbardhig afkaagii dhagaha haday ismaqleenin adaro siyaasadda lagaaga ma baahna adige siyaasadda gooni kaga bax intaas waan waxaan leenahay kan inaad nagu tilmaamto hadal aad tiraahdo oo aad tiraahdo Soomaalinimo ayaa naga badan in askarigaas aan iska saarno ayaan rabnaa maantana aad taagan tahay dawladda Soomaaliya kuma filna amnigeeda inaad ku dacaayadeyso oo aad askartina u gafto ma ah mid laga qaadan karo okay waxaan rabaa inaan ku dul istaajiyo hadal oo muhiim ah inaan ku dul istaajiyo waxa ay tahay qodobkan waxa ay tahay inaan ku soo gabagabeeyo fiidiyogan wuxuu yahay ninka maanta u sharxan madaxweynaha wuxuu oo yahay ayaa waxa ay tahay fiidiyogan aad ka arki doontaa shacabka Soomaaliyeed iyo reer Muqdisho dad la casii kara maaha dad la handadi kara maaha hora loo cabsi waayay Ethiopiana cabsi waayay taangiyaal wata argagixisa cabsi weysay dadka qarax ku laysa wuu riyoonayaa ina Farmaajo hadduu isleeyahay dadkana cabsi gelinaysa oo ka baqaya mudaharaadku wuu soconayaa ilaa ina Farmaajo uu ka baxo xilka uu ka dago hal waxa maanta u fadhiya meesha inaa maqlo ninka sheeganaya ra'iisul wasaaraha ee xafiiska ku jira ina roob la soo maahayn warkiisa rabaa inaa maqlo waxaan rabaa madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor warkiisa inaa maqlaan rabaa waxaan rabaa madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw hadalkiisa inaa maqlaan rabaa waxaan rabaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Filish inaa warkiisa maqlaan rabaa hadday dadkan matalayaan hadday deegaankan matalayaan maanta kala cadaanaysaa waxay soo saaraan iyo waxay yiraahdaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u ballan qaadaynaa guusha inay intaas jirto qaaba qowsayni oo adnahay jirtaa dictatorkana ayaamiis ay tirsan yihiin inta godobta la galaysa ha is qorto inta fursadda ay u furan tahay ha is sheegto maanta inta taariikhda diiwaanka ay gelinayso oo dadka xoreeyane ayagan ha is sheega waa maasantiin ninkan ayaa wuxuu u sharaxan yahay kursiga ugu sareeya ee dawladnimada Soomaaliya ahna madaxweynimada wuxuu u yeeranayaa waa hadii aad matashaan dadka daga Muqdisho wuxuu yiri waxa laga xoreeyay hebel waxa laga xoreeyay hebel adigu ma aad xoreynin ma aadan qayb ka ahayn dibadda ayaa kaga maqneed maanta raggii aan dhihi karno waa ku nagu abaal sheega karaan xataa aan soo dhaweey karo waa Shariif Sheekh Axmed ayaan oran karaa ninka maantay xitaa dhabarka u dhigtay inuu Soomaaliya Ethiopia kala dagaalo marka
ninkan ayaa maanta wuxuu matali rabaa Soomaali inuu isku keeno oo qabiilo kala duwan ah inuu isku keeno ayuu wuxuu rabaa inuu ku dhaqo qaabkan aad aragtaan ee Soomaalinimo la rabo in lagu hogaamiyo ayaa qaabkaani maanta noqday bal adiga qiimayso oo isku geey hadalkan uu ku hadlay hadalkii qanci waxa ka mid ah in yar ayay noo jirtaa inaan dowladnimada wax badan ka bedelna in yar ayay noo jirtaa inaan Soomaaliya saarna wadada saxda ahayd in yar ayay noo jirtaa ninkii 4 sano kursiga ku fadhiyay in maanta xilka aan ka torno in yar ayay noo jirtaa hadalkii laga qoray ayay ka mid yahay hadaladaasi waad ku maasantahay daawashadaadii fadlan hadda intana soo gaartay video waan sii share garay oo la wadaag saaxiibadaada kaleeto waan soo badi doonaa xogaa intaan ka badan adigana waxaan kaa codsanaynaa inaad xaqeena aan kugu leenahay inaad muujiso oo aad la garayso si dad badan ay u gaarto oo aad share garayso si asaga fadhigiisa ugu gaarto waad ku maasantahay daawashadaada